xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo 4 sano ugu dambeysay ku hogaamisay deegaanka xasilinta amniga kor u qaadida ilaha dhaqaalaha ee deegaanka iyo wax kasta oo lagu horumarinayo bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaba xukuumadda maanta ka arrimisa deegaanka oo ah mid markasta u taagan ka jawaabida baahida shacabka ee xilka u hayso si uu deegaanku u gaaro halka geediga loo yahay oo ah horumar dhaqaale kobcin iyo ka faa'iideysiga kheyraadka uu deegaanku hodan ku yahay iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana xukuumaddu ku tala jirtaa in la sii laba jibaaro dadaalada horumarineed oo ay gacanta ku hayso xukuumaddu iyadoo lagu guda jiro u diyaar garowga sanadka cusub waxaa haddaba lagu qabtay kulan howlka shirarka ee xafiiska madaxweynaha kulankan uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxaa ka soo qayb galay kaabineyga deegaanka iyo wasiirada xafiisyada heer deegaan kulankan oo looga hadlayay dardargelinta shaqooyinka 2007 u yaala dowladda madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda koowaad la siinayo xoojinta iyo dardargelinta shaqooyinka 2007 أجداش لنا وحوين درجلينتا شقوي كني ويا iyadoo inta uu kulankan socdayna ay mas'uuliyiinta ka soo qayb qaadatay kulankan isku afgarteen in la dardargeliyo shaqooyinka 2007 u yaala dowladda shirkan kaabineyga deegaanka ayaa ahaa mid si gooni ah looga hadlayay dardargelinta shaqooyinka maadaama la gelayo sanadkii shanaad ee ugu dambeeyay qorshaha GTB-ga ee u yaala dalka xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku hanweyn in sanadkan foodan ugu soo hayay 2007 uu noqon doono mid la hirgeliyo horumar la taaban karo oo dhan kasta leh